بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أبنائي وبناتي الكلام وحاكب الله بنية الدرس الثالث من الدروس النحوية درس جيني صدحات دروستي النحوة الكلام هذا الكأما سنتنس كاللغو وضح الله وحين صور شيقني luqadda carabigu inay kelmado ka kooban tahay kelmadahaasna ay yihiin weero isaga yimid alif beetada ama alif waxmalaha luqadda carabiga kelmadahaasi waxaynu soo sheegnay inay saddex u qaybsamaan kelmado magacooda la yiraahdo ismun iyo kelmado magacooda la yiraahdo ficlun iyo kelmado magacooda la yiraahdo xarfun waxaan kaloon soo tilmaanay oo cashiradii horeynu ku soo tilmaanay in qayb walba ay leedahay calaamado lagu garto waana soo tilmaanay waxaan kaloon soo tilmaanay in qayb walba ay u qaybsanto iyadana qaybo ay u qaybsamaan ayaynu oo ay qaybo kala duwan ay leedahay qayb walbana waxa lagu garto horeynu u soo tilmaanay kalimaadkaasi markay isu tagaan waxay sameynayaan jumlooyin bay sameynayaan sentence bay sameynayaan sentenceskaas iyo jumlooyinkaas alkalaamu baa la yiraahdaa waana midkan ay aadanaha iyo uunku ay ku wada hadlaan jumladahaas macaani sameynaya macaanidaas la isdhaafsanayo ayaa waxa la yiraahdaa alkalaam wa min alkalimati tatarakabu aljumal almufidatu kalimaadka ayay isaga yimaadaan jumlooyinka wax faa'iideynaya معناها سمينا هي معاني له وهي جملوين كاسنا المسمات مثل لغو مقعابه وهي الكلام كلام بالكلام كلام كمثل لغو مقعابه وهي إذن أبنائي وبناتي الجملة في اللغة العربية لبقي بودوية جملة فعلية جملة لو يقانو جملة فعل goormay jumlo ficliya noqonaysaa in kaana sadruhaa ficlan haddii uu yahay qaarkeeda hore ficil hadduu yahay asadru waa qofka laabtiisa xabadka ayaa asadri la yidhaahdaa marka xabadku waa qeybta kore ee jirka marka halkan waxaa laga wadaa qeybta hore ee jumlada yani labada jumladu kalimaadka ay ka kooban tahay midda hore haddii uu ficil yahay jumla ficliya la yiraahdaa mithaalkeedii waa maxay xadara almuallimu muallimkii baa yimid hada waa kalaam waa hadal wax faa'iideeyay oo ku faa'iideeyay inuu muallinkii yimid waxaa la isticmaalay laba kalmadood xadara iyo almuallimu waana waxay keenayaan macaani la isla yaqaano oo cid ku wada hadlaysa ay isla garanayso midda kale waa jumlatun ismiyatun jumla ismi ah oo jumla magaceed la yiraahdo magaca jumlada waxa la waa jumla ismiya waa jumla magaca goorma jumla ismiya noqonaysa in kaana sadruha qaarkeeda hore ama qaybteeda hore haduu yahay ismi haduu yahay mithlu tusalahan al ustaadu muallinki waaqifun uu taagan yahay waa mid taagan al ustaadu way qaybta hore ee jumladan iyada ah ama sentenceskan isaga ah waana al ustaaduna waa isim calaamadii isimka lagu garanayayna way kaaga muuqdaan oo ay ka mid tahay alif iyo laam in calaamadaha ismiga ay ka mid yihiin abnaa'i wa banaati waxaan uga gudbaynaa kalimaadku laba qaybood baa loo qaybin karaa mar kale mar saddex qaybood baynu usoo qaybinay hadda laakiin iyagii lafsadoodii baan haddana waxaan u qaybin karnaa laba qaybood min xayثu albinaa iyo walicraab markii laga hadlayo inta isbabadasha ee kolba si noqota iyo inta hal si un laasimta markii sidaa loo eego jumlooyin kalimaadkii waa laba qaybood almabniyu walmucrabu watanqasimu alkalimaatu kalimaadkii waxay u qaybsamayaan watanqasimu alkalimaatu kalimaadkii waxay u qaybsamayaan cinda taraakiibi marka ay isu yimaadaan ay tarkiib sameeyaan marka ay isgalgalaan ilaa qismayni laba qaybood kow qismun qayb laa yatagayaru aakhiruhu aakhirkiisa uusan doorsoomaynin wayusama waxaana lagu magacaabaa mabniyan mabni baa lagu magacaabaa
وقسم قيبنا يتغير آخره آخر كيسا اسببدلية أو دورسومية ويسمى وحان لغو مقعابا معربا بالغو مقعابا معربا ومحاد هيد مبني وسمحاد هيد إن شاء الله هو شيء دونا الأسماء ففهمت وحوي الأسماء مقعيدة ليست كلها عند التراكيب سواء أسماء مركا أي إسوت مادو oo ay weero isu yimid ay jumlooyin sameeyaan isu imaashadaas iyo isfangalka ay isfangalayaan hal sima wada noqonayaan laysa cinda taraakibi sawaa'un bal minha waxaa ka mida mabniyan mid mabni aha ka mida wa mucrabanna waa ka mid yahay labada qaybood un weeye mabnigan ku hormaraynaa mabnigu wa huwa mabnigu ما باليد هذا اسم يكون آخره آخر كيسو وهاني على حالة واحدة هل حالة وهاني مبني وحالة هذا متك دائما حالة آخر حرف كقدم بي حالة ديسو هل سيئون أي أهانيسو وأنا اسم بدلين وإعرابك وأفر قيبوت وقدو إيو كردك إيو هوسدك إيو ريبنين أفر تابا هدي أي ama qayb ka mida oo kelmadii ay isku babadasho kelmadaasi waa mucraba waana mid noo iman doonto hadii laakiin hal mid una laazimto kordhig bay laazimtay sida hadda mid noo soo socoto ama godow kaliya laazimtay ama hoos dhig bay laazimtay ama waxay laazimtay reebnin kelmadaasi kalimatun mabniya ayaa la yiraahdaa kalimatun mabniyatun ayaa la yiraahdaa tusaalihi qabso mithlu ayna كلمة أين ليراهدو آوي مركا الله أين بعد استعمالها سوانا واد وحل اسكو ويديو أين وكلمة مبنية ما معنى كلمة مبنية وهي كورنيق النونك قدام بيا سارا حالة النونك قدام بيا أي كلمة أين وحاوية وكورنيق انتهي كورنيقا سي مركا اسكما بدليسو أو حاضيه يدو صدح سنتنسق الشيء هذا بلو فيرسو وحاضرنا مثلا في أين الكتاب أين في أين الكتاب كتاب كيمي أين الكتاب هذا أين ومبتدأ الكتاب ندو وحاوية وخبر كيسي خبر كيوي إن قدنا تيهيد لكن ما قدنا ومبنية على الفتح بالأورانو وكلمة مبنية وحاد كلاد أوران أين ذهب علي حقي آذي أين ذهب علي حجيبو آذي أين وأيديون إن كستو أي جملة كستهد أي سمايسي هدنا الجملة أي باس كلا أوجا شرتو هدنا أين وأيديون هدنا كرديجي نون كسرنا بي ولي وضتا وحد كلا أوران كرتا ومن أين جئت حاجات كتمت ومن أين جئت حاجات كتمت جملة كلا سمايسنتي أيننا برتن كي أوجا شرتا ولي بحرف جار باكهر مري اسمي جرا حرف جر ومن حروفته وحوص دقته اسمي جنا هدي وحرف كي هوس دقيه كهر مرة إلا هوس دقيه هيد لما هوس دقيه أو محاد دعي أينا كلمة مبنية اسمها آخر كده اسمها ببدلوه باس كأي كتشرته باس كي هوس دقها بقى هذا أما باس كي جدوجها هذا أما باس كي كردقها هذا أين وأن أين هل سي مركب مبني واسمها مبني مرضا بمركا يوسن كارلو من مبني وحال هذا الاسم أيا لقد الوير هذا ساسي كود لسنتهاي اسمنا بدشو هذا جوري لساتو أو قرح كصباح جوري وجهديسو جوري ما صورة كلمة إنه قرح قبل ودع وجهسده مايا سكستو أي دعان جوري ماشي هذا وجهديسي أمبو هانا يا ولقي عليه مركا كلمة مبنية مركي لقوليه هاي أي لزم حال آخرها حالة واحدة حرفka u dambeeyay xaaladiisa hal xaraka un laazimay oo aan waligiis bedelaynin meel kasto uu jumlooyinka iyo sentenisyadu uga jiro midka labaad waa mucraban بمعنى معربكنا ومد اسم بدل وهو معربكو ما اسم بالي هذا يكون وهانا آخر كيسة على أحوال مختلفة حالة كالدول وعكس مبنوي آخر كحالة حرف قدام بي حالة دي ساوى حين قنيسا على أحوال مختلفة حالة كالدول مثل تسالهان السماء أو كلام مثل السماء سمدي أو في السماء سافية كتيرتو
السماء سافية هذا هو جملة وسنتنس السماء سافية وأنا جملة اسمية لأن السماء اسمية يكون باللابطي هذا ويقولون تهاي هو مبتدئ ماشي اللي قد لها بيشوكته إيضا لهاس دقي بعد أركض دونتا ونظرت وحان فيري إلى السماء سمدي بان فيري هذا السماء كلمة السماء وكلمة معربة جملة دنا وحي أوجد شرتا قيبت أوجد ضمبيسو ويهاس دقنتهاي لأنه ومجرورة والهاس دقا حرف جار إلى أيها هرت هذا قلي إيضا كر دقنا أنكتوسو وحجبت السحب السماء ضروره وحي قريان أو أي أودين السماء السمدي ومفعول به ما أنت مفعول به نو كردغان يحي وتا كردغان marka كلمة السماء وكلمة معربة مر السماء بين نقون مرنا السماء بين نقون مرنا السماء بين نقون صدحدي حركه اسمي او قادن جيري إلا اسم لما ريبه صدحدبا way noqon kartaa marka kelmadaasi waa kalimatun mu'raba ayna iyaduna waa ism iyadoo oo jumlooyin saddex midba meel ka gashay oo meeshii la godi lahaa meeshii la kordhigi lahaa meeshii la hoos dhigi lahaa ayay hal xaala iyadana laazimtay waa kalimatun mabniya baa la yiraahdaa marka kalimaadka mabniga iyo kalimaadka mu'rabka saa u kala garta barakallahu fiikum halkaasuna noogu dhamaaday darsigeennii saddexaad waa inoo insha allahu tabaaraka wa tacaala darsiga afaraad wa salli allahuma calaa sayidina muxammadin wacala alihi wasaxbihi ajmaciin